magacaygu waa Cadnaan Maxamed Odawaa waxaan ku magac dheerahay Cadceed waxaan doonayaa in galabta ka hadlo fankeena oo siyaas in aad inoogu muhiim ah isla markaasina point muhiim ah inoo ah oo inaan ka maarmi karin oo nolosheena ku dhisan tahay oo dhaqankeena hore ku dhisan yahay waa sababta markaad imika dhaqan baadhayso Soomaalida inuu waxba hore u qori jirin aad suugaanteeda markaad baadhaad wax walba ka helaysid tusaale ahaan aad sawirro u baahan tahay way hore la qaaday suugaantaad ka dhaxelaysaa kiiba imika waxa dhacday inay qoladeenan dambe ay si kale u fahanto isla markaasina ay western culture-ku ina soo gaaro waxyaabahan loo yaqaan dhaqanka reer galbeedka waxaad arkaysaa inantii oo intay filimada soo daawato filimada amba Hindida amba Mareykanka isa soo qaawinaysa oo soo banaynaysa meel aan jirkeeda loogu talagelin isla markaasina helka ka soo heesaysa ma adiga lagu daawanaya ma heesta la dhageysanaya ma waxaasi waa wax aad iyo aad aan tusaale ahaan oo kale nolosheena dhan kharibaya isla markaasina caruuraheena kharibaya waxaan oran lahaa waxyaabahaas oo kale hal joojiyo salahaan oo kale waxaad arkaysaa waxa ka caansan tahay gabadhay iska qaawisay imka waa sababta kuwii kale ku dhiirinaysa inay isqaawiyaan wax la oranayaa war maanta maad heesaysaa ha oo ismaba qaawisidaadu iyo wax meelaha tustus dadka harakaad samee dhir dhooban isku soo xidho amba dhar dhooban soo xidho taasina waa caqabad inagu keenaysa inay dumarkeennii kale wanaagsanaa baaba'aan waxaana waagii hore waa la iska qaban jiray waxa jirta guud iska qabata dawlad iska qabata fanaaniintu meel sare kaga jireen dawladda ayaa waxa sameyn jirtay in budget u qorto isla markaasina ay lacag ku siiso sidii maadaama bulshadii ay hankoodii dhisayaan madadaalinayaan ay kolba waxyaabaha xun kaga reebayaan heesaha ay riwaayada ay dhigaan waxyaabaha xun kaga reebayaan laakiin imika dawladdiina waxaad moodaa in faraha ka qaaday oo ayna dawladii la xisaabtamayn waxaad arkaysaa in meel kasta iyadoo Hargeysa dhexdeeda lagu duubayo waxyaabahaas fanaanka waxa ku xiran intaasoo dad ah oo intaasoo hablaha ku xiran waxa ku xiran bulsho kala ku xiran bulshadaasi Hargeysa khaas ma aha waxyaabaha waxaan ka dhacayaan fanaaniinteena xamar oo kale Shaadiye Sharaf inaan la yiraahdo oo aad uga yaabay in siyaasad lagu yiri Shaadiye Sharaf baa la yiraahdaa Nairusto ay ku sheegayeen magaceeda waxaas oo kale waxyaabaad ka yaqyaqoonaysa inaad hees badaawataa nacaysa dadka isku dirina bulsho badan baa ku xiran waxaad arkaysaa in dhar baa inay xidhanayno ay malaha qaawanaanta ay yiraahdeen bade isqaawiyo qaawanaanta baa ku daawanayo qaawanaanta waxaas waa ceeb diin ahaan bay naga soo horjeedaa dhaqan ahaan bay naga soo horjeedaa waxay ka soo horjeedaa bulshadeeni bay saameynaysaa sidoo kale dad baa ka doobaya iyaga maaha hablahan waxa dhalay waalidiin baa dhalay hablaheeni weeyaan waalidiin baa dhalay dadkan ka duubaya in ka duuba waxyaabahaas oo kale ma kameradmanka ka duubaya ka edit gareynaya waxyaabahaas oo kale xataa edit gareeyay ma ka soo galnay social media kuwa si share gareynaya xataa ayaa ku jira iyaguna oo xumaantaas leh sidoo kale hooyada hadday wax ka qaban weydo tusaalahan oo kale laga yaabo in hooyooyinkood intaan aba meel kale ka fogay joogan dawladda ayaa ka mas'uula waxa ka mas'uula culimadii hadday ka hadli waayaan waxyaabaha noocaas ah beertoola dadkeena dhan ba sidaas noqonaya marka lagu celceliyo waxyaabahaas wax caadi nagal noqonayaan in qaawanaan ku marna sida wadamadan aan diimaha haysan oo kale ay noqonaysa marka waxyaabahaas oo kale laga waantoomo tusaalahan oo kale bal heesaheenii hore waxyaabo macno leh baa ku jiray markuu tusaalahan xoolaha sumada lagu baadi sooca qofna weedha sugan iyo sawraca tilmaanta lagu baadi sooca xoolaha basumada lagu baadi sooca xoolaha basumada lagu baadi sooca dadna weedha sugaaniyo sawraca tilmaanta lagu kala sifeeya anna geelba sibir godan dadna weedha sugaaniyo sawraca tilmaanta lagu kala sifeeya anna geelba sibir godan kugumaan salaamine sababaan tirsanaya anna geelba sidib godan kugumaan salaamina sababaan tirsanaya gabadh baa tahay kuguma salaamayo kuguma heesayo kuguma doonanayo sababaan tirsanaya jiray wanaagaaga akhlaaqdaada dharkaad xeelan tahay sidaad u heesisid waxyaabahaas oo dhan baa jirta
marka intaasaan ku soo gabagabeynaya waxyaabahaasna halaga waantoobo macnaha ma aha inaan cid dhaliilo laakiin waa inaan wax toosino hadii ka hadli weyna maanta gurigeena inoogu imanaysa aniga ay taabanaysa beritoole kuwan walaalaan hayba sidaas oo kala noqonaya aday ku taabanaysa ninkan ay daawanaya bulshada ay daawanaysa waxyaabahan aynu ka hortagno